Al-Shabaab waxay mar kale soo bandhigeen gaadiid dagaal oo ku buufsan yahay nashqada militariga Soomaaliya. Warbaahinta ku hadasha Al-Shabaab ayaa baahisay sawirada gaarigan oo noociisu yahay Taw oo dusha sare ay ka saaran yihiin dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab iyo calanka Al-Shabaab oo dul babanaya gaarigaasi. Al-Shabaab ma sheegin sida ay ku qabsadeen gaarigan iyo waliba xilliga ay qabsadeen, waxaana gaarigan gaashaaman ka mid yihiin gaadiidka dowladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan militariga Soomaaliya deeq ahaan loo siiyay. Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn hubka ee qaramada midoobay ku soo rogtay sanado badan ka hor, laakiin qaar ka mid ah dowladaha Yurub, wadamada Carabta iyo deeq-bixiyaasha ayaa militariga Soomaaliya ka taageera tababar iyo qalabeynta ciidamada militariga ee Soomaaliya. 17 bishan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay dowladda Qatar ku wareejisay 68 gaari oo nooca xabadda aan karin ah, kuwaasoo loogu talagalay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Gaadiidkaasi oo ahaa kuwa loogu talagalay ciidamada Soomaaliya waxay mas'uuliyiinta dowladdu sheegeen inay kusoo beegmeen xilli militariga Soomaaliya ay baahi xoogan u qabeen helidda gaadiidka noocan oo kale ah. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa marar badan ka soo muuqday iyaga oo wata dareeska ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya noocyadiisa kala duwan, sidoo kale wata hub iyo gaadiidka militariga Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore waxa ay weeraro kala duwan ku qaadeen xiriyo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolada dalkeena Soomaaliya haba ugu badnaatay gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana dhowr jeer ay soo bandhigeen gaadiid iyo hub ay kala wareegeen ciidamada militariga ee Soomaaliya. Maxamed Qays Xasan Maxamed, Home Cable TV, magaalada Muqdisho.